السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وندين سلامي دمان أصحابتي ku xiran kanaalkeena ku soo dhawaada casharkeena maanta casharkeena wuxuu ku saabsan yahay wax lagu magacaabo checkmate checkmate waxa la yiraahdaa markii boqorkaaga laga qabto isla markaasna aysan jirin wax caawiyo ama hadii ahaato inuu cararo hadii uusan awoodin inuu cararo cid markaas checkmate ka hortagtana aysan jirin ama ka qabato ciyaartu way dhamaatay tusaale ahaan hadda hadii aan fiirino ciyaartan geediga waxa leh cadaanka geediga waxa leh cadaanka wuxuu tagi doonaa C8 oo halkaas ah ciyaartan way dhamaatay waayo boqorka waxa la qabtay oo waxa hayo rogan runtii ciyaartan ujeedkeeda ma ahan inaad haysatid xubno badan waayo hadda midowga wuxuu haystaa fardo iyo boqorad mana awoodaan inay boqorkan caawiyaan oo ciyaarta ujeedkeeda waxay tahay in boqorka la qabto marka waxa jirto checkmate markii aad qofka ka soo horjeeda aad leedahay saddex sharci ayaa jirto saddexda sharci waxay tahay tusaale hadda rogan wuxuu hayaa boqorkan madow hadii boqorkan madow uusan carari karin marka koowaad hadda ma carari karo oo sababtoo ah hore uma carari karo roga ayaa ku aadan intaan dhan roga ayaa hadda haysato intan kuma carari karo oo askariga ayaa hayo askarigiisa ayaa ku aadan inta marka optionka koobaad ama ikhtiyaarka koobaad waxa ku banaan inaad cararto midda labaad waxay tahay in rogan laftirkeedaba laga qabto oo tusaalahan hadda dii fardahan uu meeshan taagnaan lahaa ciyaarta ma dhamaan lahayn oo waxa qaban lahaa fardahanna meesha ma joogo oo wuxuu joogaa H6 mana awoodo marka inuu qabto waa ikhtiyaarka labaad taas ikhtiyaarka labaad wada weysay ikhtiyaar saddexaad ayaa jira oo ah meesha hadda uu H6 ka taagan yahay hadii uu G6 ka taagnaan lahaa ciyaarta ma aysan dhamaan lahayn oo ikhtiyaarka saddexaad ayaa ku banaanaan lahaa oo ah in boqorkaadi uu sameysto difaac oo ka hortag uu sameysto waxayna noqon lahayd in uu fardaha soo laabto uu imaan lahaa F8 waxayna noqon lahayd inuu fardaha soo laabto uu imaado F8 oo ah halkaas marka saddexdii ikhtiyaar hadii aad weysid ciyaartu waxay tahay way dhamaatay ciyaartu macnaheedu waxay ahayd in boqorka laga qabto waana dhamaatay checkmate-na sidaas ayaa lagu magacaabaa hadii aan marka tusaalahan labaad fiirino tusaalahan labaad boqorkan madow waxa la rabaa in la qabto geedigana waxa leh ama guuritaanka waxa leh cadaanka laba meel ayaa jirto oo ku qaban karo boqorkan madow labadaas meelna waxay tahay inuu tago F8 iyo H7 tusaalahan hadda F8 uu tago hadii uu tago boqorkan wuxuu ku jiraa checkmate sababtoo ah saddexdii ikhtiyaar midnaba ma haysto saddexdaas ikhtiyaar hadii aad weyso ciyaartu ay ka dhamaatay saddexdaas waxay tahay marka koobaad inuu cararo ama protection inuu sameeyo oo xubin ay meeshan ka soo istaagto ama isla xubinta checkmate ayso in laga qabto oo la dilo hadda tusaalahan hadii uu rug meeshan taagnaan lahaa oo boqorada ay tagto F8 waxaan haysanaa ikhtiyaarkii ahaa ma carari karno oo inta ma aadi karno sidoo kale inta ma aadi karno waa naga dhamaaday kaas laakiin waxaan haysanaa ikhtiyaarkii ahaa protection ka hortag micnaha waxaan ka wadaa in jeegab laga celiyo oo rugu soo laabto oo isla markaasna uu ka celiyo boqoradii qaban lahayd boqorkaagi hadda rugan ma joogo balse ka waran hadii uu farda taagnaan lahaa meeshan waxaan noo banaan lahaa iyadana ikhtiyaarkii labaad oo ahaa in xubinta checkmate ku dhaysaba laga qabto iyana ma ku banaano oo boqor fardaha ma joogo marka ciyaarta markaas waxaan leenahay waa checkmate ciyaartan way dhamaatay